waxaan ku bilaabayaa magaca Eebe, naxariista guud iyo mid gaar ahaaneedba leh. Mahad ideelkeed Eebe weyne u sugnaatay. Nabadgelyo korkiina ha ahaatay iyo naxariista Eebe. Wacnaan idilkiinba meel walba oo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta oo aynu kaga hadli doono ahmiyadda maamulidda waqtiga iyo faa'iidada waqtigu uu leeyahay, iyo weliba sidoo kale talooyin ku saabsan sida looga faa'iideysan karo waqtiga. Waana ciwaan aan filayo in dad badani ay aad u falanqeeyaan kana hadleen. Caalamkana waxa uuba ka mid yahay buugaagta loogu iibsiga badan yahay ee time managementiga. Waxaana ka mid ah buugaagta ay qoreen Shawn Jabra, Lyle Cockrell, Kevin Kruse, Steven Trest, Dr. Vijay Agrawal iyo kuwa badan. Sidaasi darteed ayaan ana jeclaystay in aan wax ka iraahdo intuu Eebe weyne iga garansiiyo, weliba si kooban hadduu Eebaha nafta lihi ogolaado. Waxaana inta badan isdul taagi doonaa ka annaga muslimiin ahaan faa'iidada waqtiga iyo weliba ahmiyadiisu waxa ay ka yiraahdeen kitaabka Allah iyo sunnada suubanaheena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Waqtigu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu Eebe weyne ku dhaartay. Waxaana wada ogsoonahay ahmiyadda gaarka ah oo ay leedahay wuxuu Eebe weyne ku dhaarto in aysan cayaar ahayn, weliba aanan mar ama laba ahayn, sidoo kalena aanan hal xilli ama laba xilli ahayn waqtiyadu uu Eebe weyne ku dhaartay. Eebe waxa uu ku dhaartay habeenka iyo maalinka oo idil si guud iyo si gaar ah labaduba. Qaala tacaala: walleyli idaa yaqshaa wannahaari idaa tajallaa wadduxaa walleyli idaa sajaa walleyli idaa cascasa wassubxi idaa tanafas walleyli id adbara wassubxi idaa asfar waalfajri walayaalin cashr waalcasri ina alinsaana lafi khusr. Eebe wuxuu ku dhaartay habeenka markuu wax qariyo iyo markay maalinta muuqato. Sidoo kale Eebe waxa uu ku dhaartay barqinka iyo habeenka markuu u xasilo iyo habeenka markuu jeedsado iyo subaxa markuu soo qaabilo iyo habeenka markuu uu jeedsado iyo subaxa markuu iftiimo. Eebe wuxuu kaloo ku dhaartay waa bariga iyo habeenada 10 ah ee Carafo. Wuxuu kaloo Eebe ku dhaartay waqtiga casirka ah. Waqtiga waa hantida ugu qaalisan ee uu qofka bini'aadamka ahi uu haysto, waana xilli go'an oo xadidan, keed ama dhigaalna aanan gelin. Qof walibana habeen iyo maalin isku dar waxa uu haystaa waa 24 saacadood. Qof kale sikin dheer ama ka yar haystana ma jiro kolkay tahay 24 saacadood. Cimrigana qof waliba wuxuu haystaa xilli go'an oo uusan ka hormari karin kana dibdhici karin waqtigaasi. Qaala tacaala: walikulli ummatin ajalun fa idaa jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun. Ummad kasta waxaa u sugnaatay ajal muddo, markay timaado ajashuna kama dib maraan saacad kamana hormaraan. Waana su'aalaha ugu horeeya ee uu Eebe weyne weydiinayo qof waliba maalinta qiyaamo. Eebe weyne hortiisana uusan ka dhaqaaqi doonin asiga oonan ka jawaabin su'aalahaasi. Waana cimrigaaga oo idil iyo qayb ka mid ah cimrigaaga oo ah waqtiga aad dhalinyarada ahayd. Waqtiyadaasi waxaad ku bixisay. Aan u nimaana faa'iidada waqtiga. Waa nimco ka mid ah nimcooyinka Eebe weyne. Waana xadiiskii Ibn Cabbaas radiyallahu canhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراق. suubanaheena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu yiraahday laba nicmo oo nimcooyinka Eebe weyne ka mid ah dad badani way ku kadsoomeen, waana caafimaadka iyo firaaqada. waa dardaaran ka mid ah dardaarankii suubanaheena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. qaala sallallahu calayhi wasallam: iqtanim 5 qabla 5 shabaabaka qabla haramik wasixatuka qabla saqamik waqinaaka qabla faqrik wafiraaqaka qabla shuqlik waxayaataka qabla mawtik. 5 horteed ka faa'iideyso dhalinyarnimadaada inta aadan gaboobin, caafimaadkaada inta aadan xanuunsanin, hodantinimadaada inta aadan ceertoobin, firaaqadaada inta aadan mashquulin, noloshaada inta aadan dhimanin. Habeenka iyo maalintu waa 2 calaamadood oo ka mid ah calaamadaha Eebe weyne. Si aan u ogaano fadliga Eebe iyo inaan ku ogaano sidoo kaleeto tirada sanooyinka iyo xisaabtaba. qaala tacaala: wajacalna alleyla wannahaara aayatayni famaxawna aayata alleyli wajacalna aayata annahaari mubsiratan litabtaguu fadlan min rabbikum walitaclamuu cadada assiniini waalxisaab وكل شيء فصلناه تفصيلا. wuxuu yiri Eebe waxaan ka yeelay habeenka iyo maalinta 2 calaamo. waxaana tira calaamada habeenka, waxaana ka yeelay calaamada maalinta mid wax tusisa inaad doontaan fadliga Eebihiin iyo inaad ku ogaataan tirada sanooyinka iyo xisaabta. wax kastana waxaanu u cadeynay cadeyn aad ah. waxa ayna cadeyn u tahay ka annaga Soomaali ahaan sida aan u xisaabsano xilliyada waqtiga sanadka iyo weliba bilaha sida gu, deer, jiil
jiilaal iyo xagaa. Habeenka iyo maalintu waa laba calaamadood oo qofka bani'aadamka ahi looga baahan yahay in uu eebbaweyne ku xasuusnaado uguna shukriyo. qaala tacaala: wahuwa aladii jacala alleyla waannahaara khilfatan liman araada an yaddakkara aw araada shukuura. waa allaha ka dhigay habeenka iyo maalinta kuwa isbedelaya, waxa uuna u yeelay qofkii doonayo in uu waantoobo ama doonayo in uu mahadnaqo. talooyin ku saabsan sida wakhtiga looga faa'iidaysan karo. waxaan dhowr qodob ka dhihi doonaa talooyin dhowr ah oo ku saabsan sida looga faa'iidaysan karo wakhtiga, weliba si kooban. waa in aad fahanto oo aad garato qiimaha wakhtigu uu leeyahay oo aadan dayacin. waa in aad nidaamsataa wakhtiga, qoratidna maalinta waxa kuu qorshaysan, iyo usbuuca waxa kuu qorshaysan, bisha waxa kuu qorshaysan, sanadkana waxa kuu qorsho ah. yacni ha noqonin qof bilaa qorsho uu yahay wakhtigiisu. waa in aad iskaga tagto wakhtiga inta aadan u baahnayn, sida sheekooyinka asxaabtaada inta aadan u baahnayn, dhegaysiga wararka iyo daawashada muuqaalada muhiimka ah inta aadan u baahnayn, jiifka ama hurdada inta aadan u baahnayn iyo wixii la mid ah. saaxiib la noqo dadka wakhtigooda ilaashada oo aanan dayicin, si ay kuugu noqdaan tusaalo aad ku dayan kartid, dhiiragelin iyo tartanna aad ka faa'iidaysid. waa in aad naftaada ka dhaadhicisaa in ay hankeedu sarrayso oo aad hiigsato himma caaliya, casiimad iyo go'aan adagna aad lahaato. ha ku jihaynin naftaada hal dhinac. diintaada wakhti sii, shaqadana wakhti sii, isboortiga iyo cayaarahana wakhti sii, barasho xirfad ama aqoon kalena wakhti sii iyo wixii la mid ah oo ku anfacaya adduun iyo aakhiraba. waa in aad mar weliba maanka ku hayso haddii uu wakhtigu ku dhaafo in uusan kuu soo noqonaynin. howl ama wax aad qaban kartid maanta ha u dibdhigin berri ayaan qabani ama maalin kale. aan u nimaana haddana qofka eedeeyo wakhtiga ee aanan asiga is eedin, dhahana wakhtiga barakada laga qaaday oo si uu kugu dhaafay garan maysid, iyo waxaan qabtaan waayey, iyo waxaas ayaan isku dhaafinayay wakhtiga, iyo boorin ayaan dareemayaa, iyo caajiskiiya ay ka batay iyo wixii la mid ah. waxaa la hadlay caalimkii weynaay ee abu cabdullaahi maxamed ibnu idriis ashaafici oo ku magac dheeraa imaam ashaafici. waxa uuna yidhi: naciibu zamanina walciibu fiina wama lizamanina ceebun siwana wanaxju da zamani biqayri dembin walow nataqa zamanu lana xajaana. wuxuu yidhi imaam ashaafici: waxaanu ceebeynaynaa wakhtiga ama sabanka, ceebtuna ay annaga dhexdeena ahaatay. xilliguna ceeb aanan annaga ahayn ma lahan. waxaynu caayaynaa wakhtiga ama sabanka isagoonan dembi lahayn. hadduusan wakhtiga nala hadli lahay annaga ayuuba na caayi lahay. halista iyo khataraha ka dhalan kara qofka aanan ka faa'iidaysanin wakhtiga. qofka aanan ka faa'iidaysanin wakhtiga, wakhtigu naftirkiisa ayaa waxa uu ku noqdaa xanuun iyo cudur dhaxalsiiyo shallaay iyo qoomamo. sidoo kale wuxuu dili caqliga, maskaxda iyo weliba awoodaha jirka uu leeyahay oo idil. haddaadan nidaamsanin wakhtiga oo aadan ka faa'iidaysanin wakhtiga, waxa uu kugu hagi karaa meelaha xunxun, kadibna waxa uu halis gelin karaa aakhiradaada. guntii iyo gabagabadii barnaamijka, dhegaystaha daawadaha qiimiga badanoo waxaan naftayda iyo naftiinaba eebbaweyne u weydiinayaa in uu inaga dhigo kuwii wakhtigooda ka faa'iidaysta kuna bixiyo wax anfaco adduun iyo aakhiro labaduba. ilaahayna inagama dhigo kuwa maalinta qiyaama khasaareynta wakhtigooda awgiis ku mutaysto shallaay, qoomamo iyo cadaab. subxaana rabbika rabbil cizzati camaa yasifuun, wasalaamun cala almursaliin, walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.